waa tahay weli waxaan ku jirnaa wararka deegaanka imkan xagga Soomaaliya ayaynu gudbinaayay waqooyi bari ee Soomaaliya waxaa jira dad badan oo iyagu weecday in adeegsadaan tamarta qorraxda laga dhaliyo iyagoo isticmaalaya beeraha iyo guryaha dabcan solar la isticmaalaya waa talaabo deegaanka u wanaagsan laakiin dad badan dhibaato waxa ka haysataaba oo waliba miyiga degan daayactirkii iyo qalabkii Maxamed Xasan Dhalo ayaa warbixintan Garowe ka soo diray dabaysha dhacaysa iyo cadceedda kululi waa kuwa dhif maahe maalin walba laga helo deegaankan oo laga dhalin karo tabarta dabiiciga ah Soomaaliya waa meelaha adduunka waxa ka mid tahay ugu badan dabaylaha soonahan la yiraahdo intertropical convergence zone waa meelaha dabayluhu ku kulmaan ay direction-kooda ku bedelaan marka Soomaaliya waxa lagu tiriyaa meelaha mustaqbalka tabarta kaysan ay ku jirto dabaysha iyo solarka sidaas oo ay tahay waa yar tahay inta ka faa'iideysata Soomaaliya halkan waa baran degmo ka tirsan gobolka Sanaag waxa ay ku taal dhul bannaan oo dabayl ka dhacdo marawaxadaha hawada tabarta ka dhaliyana halkan kuma badna middan oo ugu weyn 3 baran ka taagan ma shaqayso waxayna muddo 4 sano u fadhidaa cilad ku timi tan oo 15 sano hay'adii ila iska ka helaysay iyana waxa baalihii wareegi jiray soo riday roobab dabayl watay oo gugii hore da'ay xilligan baran waxa shaqeeya tan oo kaliya waxaana qoyskan adeegsada cabsi ka qabaan in ay u waayaan isbeerbaarti haday xumaato xilliyada dabaysha ay badan tahayna dad badan ayay dhalisaa xilliyada dabaysha ay tahayna dab yar ayay soo deysaa isbeerbaartiga meesha ugu dhow laga heli karaa waa Dubai balse ciladaha yareeda ku yimaada qof kasto dabka bartay ayaa samata bixin kara wax weyn oo buuran oo dibad loo geyn karana waliba kuma iman gobolka Sanaag waxa ku yaal buuraha ugu dheer Soomaaliya oo inta badan qabow qorraxduna ku yartahay laakiin deegaamadan bannaan ee gobolka ka tirsan waxa ay ka mid yihiin meelaha Soomaaliya ugu kulul ceelkan waxa uu ka mid yahay inta dhifka ah ee adeegsada tabarta cadceedda laga dhaliyo gobolkan solarta maalintii wax ka soo yimaado way waraabin kartaa haddaan daruuri dul iman oo aan qorrax waayin markii daruuri dul timaado qorraxdu way tagaysaa dabkii waa la waayaa marka haddii ay sida qorraxdu u saaran tahay hadda ay u saaran tahay wixii doonaa ka cabayya baabuurta ka cabaysa dadka ka cabaya dunyada ka cabaysa dhinac walba loo jibinay guud ahaan Soomaaliya male warshado wax soo saar oo hawo wasakheeya waxaase ku badan matoorada daalay haday tahay kuwa gaari iyo qaarkan ila iska baxsha waa ognahay adduunku inuu isbedelayo waxyaabaha ugu waaweyn isbedelkeena waxa weeye hawada kululaanaysa oo kaarboonkan ay waxaan baxaya hawadii bustay ku noqdaan markuu falaadhi ay ku dhacdo dhulkii kulka uu noqdo kulkii ma baahayo hawooyinka carbon dioxide-ka iyo ayaa celinaya kulaylka ku soo noqonaya saas la ashligeed in la helo badiil kale oo ah hawo nadiifa ama green energy ama clean energy oo hawadii wax yeelayn waa muhiim